xaqiiqooyin u gaar ah filimka Amirkan ee classic ahaa Qiyaam Si Qiyaamad Taag. Qiyaam Si Qiyaamad Taag waa mid ka mid ah aflaamta jaceylka ah ee fanka Hindiya wax weyn ka beddelay, sidoo kalena lagu muujiyay in dhalinta Hindiya fanka miisaan ku yeelan karaan. Qiyaamad Si Qiyaamad Taag waxaa director ka ahaa Mansoor Khan halka uu maalgeliyay Nasir Hussain, waxaana lagu soo canbixiyay Aamir Khan iyo Juhi Chawla. Qiyaam Si Qiyaamad Taag waxaa la daawaday 9 Abriil 1988, waana filim super hit noqday oo ilaa haatan jecel yihiin dadka xiiseeya aflaamta Hindiga ah. Filimka Qiyaam Si Qiyaamad Taag iyo xaqiiqooyinka u gaarka ah. Xaqiiqada koowaad, Qiyaam Si Qiyaamad Taag waa filimkii ugu horreeyay ee lagu bilaabay nidaamka xayeysiinta hadda filimada lagu sameeyo. Waxaa meel walba lagu dhejiyay qoraallo dadka soo jiidanaya sida "Waa kuma Aamir Khan? Weydii gabadha albaabka ku dheggan." Sidoo kale, mootooyinka bajaajka ama tuk-tuk oo dhan waxaa lagu dhejiyay sawirada Aamir Khan, weliba suuq-geyntana Aamir isaga ayaa sameynayay oo magaalo walba tagayay xilligaas. Xaqiiqada labaad, dhamaadka heesta super hit ka noqotay Baya Kahte Hain Aamir wuxuu gabadha u dhowaanayo wuxuu la qaadayaa "Aan Qon Ke Maine Jaddu." Qof kale ma ahan, gabadhan waa Reena Doot, xaaskii hore Aamir Khan. Aamir iyo Reena markaas ayay is guursadeen si lama filaan ah ayay goobta filimkan ku timid lagu duwayo, sidoo kalena si lama filaan ah ayay muuqaalka kooban ku yeelatay. Xaqiiqada saddexaad, marka filimkan hit noqday si uu muddo dheer tiyaatarada u saarnaa, kooxda cajaladaha Mumbai qaybiyaan waxay la yimaadeen suuq-geyn hirgashay oo ah qofkii iibsado 7 ilaa 8 tikidh in la siinayo kaarto ay ku sawiran yihiin Aamir Khan iyo Juhi Chawla. Waxay noqotay siyaasad si weyn u hirgashay. Xaqiiqada afraad, Aamir Khan wuxuu qabsaday Hindiya oo dhan, waana markii loo bixiyay Loverboy oo ilaa haatan mararka qaar loogu yeero. Xaqiiqada shanaad, Qiyaam Si Qiyaamad Taag waa filimkii ugu horreeyay ee Alka Yagnik ka heyso hal album oo dhammaystiran. Xaqiiqada lixaad, xafladii Filmfare Award ee markii 34aad la qabtay, wuxuu filimkan ka helay 7 biloodood asigoo u tartamay 10 biloodood. Sidoo kale, abaalmarinta National Film Award ayaa 2 biloodood laga qaatay. Xaqiiqada toddobaad, Juhi Chawla filimkan tijaabadiisa markii laga qaadayo qofka wareystay tijaabadana ka qaaday wuxuu ahaa Aamir Khan, laakiin marnaba ma aysan ogeyn inuu yahay atooraha filimka ay jaceylka kula jeli doonto. Xaqiiqada siddeedaad, filimkan Qiyaam Si Qiyaamad Taag dib ayaa loo sameeyay asigoo Telugu ah, waxaana loo bixiyay magaca Akadai. 1996 ayaa la daawaday, waxaana filimkan ku soo caan baxay Pawan Kalyan Ram Charan adeerkiisa. Sidoo kale 1993 filimkan asagoo Bangladesh ayaa dib loo sameeyay, wuxuuna watay magaca Qiyaamad Ki Qiyaamad.